kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta joogteen kuna soo dhawaada barnaamijka Danger Show aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Somali Channel halkan toos idinkaga soo daynayno waa magaalada Columbus ee gobolka Ohio barnaamijka Danger Show aan alaaba ku soo qaadano arrimo kala duwan sida aqoon kororsiga wacyigelinta arrimo badan oo aan u aragno markaas bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogtaba inay faa'iido u tahay qaybtan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa arrin aan filayo inaad nala xiisin doontiin oo ku saabsan arrimaha sixirka isha iyo jinka taasoo hadal haynteeda aad u badatay oo saan meel walba ka maqalno dad badan oo Soomaaliyeed waxaan kaas ku dhacay ama la sixray ama la lagu maaragtay la ilaystay ama jin galay dadkaas oo alaaba u taga dad daaweynta cilaajka loo yaqaano ku takhasusay dadkaas oo marka lagu daaweeyo Quraanka marka barnaamijkaas ayaan maanta ku soo qaadanaynaa qaybtan waxaana aan ku soo codsanay barnaamijka Danger Show Macallin Cabdullaahi Maxamed Macallin Cabdullaahi oo ah nin muddo dheer ku soo jiray cilaajka iyo daaweynta dadka ku dhaca jinniga iyo sixirka iyo isha intaba arintaas oo soo waday ilaa muddo 8 sanadood haddana uu booqasho noogu yimid magaalada Columbus ee gobolkeena Ohio Macallin Cabdullaahi marka hore barnaamijkeena ku soo dhaweynaya ما سنتين بعض صومالي تمام هذا ما سنتين السماد هذه وسع سنتين شنلك إن شاء الله تعالى وأتكلم القانون ده وحي عبود إلى الله الكيس مع عبد الله مركه هدان كويديو حرفدان قرطة بالوضي داوينتا وادي شكت إلى مدة 6 سنوات إن تكون جرتي هوشان لكن محاك ولا لي مركه ذا هوري هدان كويديو بسم الله الرحمن الرحيم على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ينفعنا فيما ما بعد وما سنتهي ولا لا برنامج كذلك ساعة سنتين إن شاء الله تعالى وفائدة وين ومدة انت عن سؤال جوابتي الأولى الكريم فائدة وين ومدة صومالية أفكار صوماليا كوها الله وحوين وتركرته maxay cilmigani waa cilmi godob ballaaran dadkuna ay baahi badan u qabaan waqtiyadan samankan dambana hadeerto aad u baatay hawshaasi meel walba dadku joogaan horumarka adduunku uu sameeyay qayb ka tahay inay dhiftiisuna ay farabooto waxa igu kalifay runtii anigu markii hore diyaar uma ahayn inaan hawshan galo لكن هو إلهي حقي سبحانه وتعالى رسول كوحي صلى الله عليه وسلم هدو قفطونه إنه إلهي شقاليه استعمله هو شقاليه سيستا مركا هو الإلهي إيدي ريبان وأركي محايلي نيدي دي كمين قوحينين إني مارت حرفدي نقطة وحفظا وجهلي بان كغسقنا إنكستو عن مارت وحكري يرفع فهمي مركا مقالة من يابولس أنا كعصب waxaa dhacday dhalinyaro yaryar oo maaragtay khayr badan inay u kaceen arrinkaas oo cilaajka ay sameeyeen waxay leeyahay baahi badan ay arkeen waxayna u sameeyeen iyagoon cilmi badan lahayn dadaal ay leeyihiin bal maaragtay dadka aad ku caawisaan cilmigana runtii waa cilmi jihaad ah oo lala jihaadayo shaydaanka rasmiga ah ee ibliis lagula jihaadayo lagula dagaalamayo ilaahay kalaamkiisa iyo kitaabka alle awood la adeegsanayana waa ilaahay maarata awoodiisa meesha saxarada iyo shayaadiinta dadka u yeeranayaan ee ibliis awoodiisa adeegsanayaan ilaahay baana ibliis abuuray haduu qofku alla kalsoonaadana wax badan ba u hagaagayo marka anigoon arrinka diyaar u ahayn nimanka dhalinyarada waxaan arkay inay dadaalayaan falillahi alhamdu waxay igu dhalisay inaan iyagi maaragtay talooyin siiyo maadaama aan ciyaar cilmi dhaamay kadibna inay maaragtay igu soo jiidaan cilmi siintii aan cilmi siinay casharadan siinay inay iga soo qayb galiyaan xalqadii marka kadibna dhalinyaradii iyaga ayaa maaragtay safray oo meel kale u safray kadib dadkii xanuunsanaa aniga ay soo ictimaadeen runtii anigu maaragtay marka diyaar uma ahayn jismiyan iyo yaani maaragtay waqtigan taagnaa oo anoo iska xanuunsan iyo hawlaha alxamdulillah marka ilaahay baa maaragtay hawlahayga suuqay soo arooriyay kadibna hawsha waxay noqotay hawl dadkiina anfac u yeelata anigina maaragtay igu dhiirigelisa inaan dadkii maaragtay yaani maaragtay waxtar aan u sameeyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam anfa'ukum linnas kiina idinku anfac badan yawmal qiyaamaha
waa ka adduunyada maaragtay ummadda anfaca ee waxtara ee dhibaatada iyo maaragtay tacabka haysta la tafaacula waxaana waa wax imtixaan ah oo dhibaya ummadda oo loo baahan yahay in maaragtay aad iyo aad loogala yani qayb qaato إن شاء الله تعالى سؤال شاب كل جوابتي راح نمرينيا هذا هو جوابتي أنا ما صنطاي محوية مركب فرق يقول حياة جنك سحرك يعيش سد حدث وحياة بعض أوضات كل عي وحي كلام كسي بضنبا هذا النوشي بدوني محيه فرق يقول كلام حياة dadku aad bay maaragtay arka ugu wareeraan jinka iyo sixirka iyo muxuu ahaa isha sixirka iyo jinka cilaaqa ka dhaxaysa waana sheegi doona cilaaqada ka dhaxaysa sixir jin ishana cilaaqa ka dhaxaysa cilaaqada isha ka dhaxaysa iyo jinka waxa weeye inta badan noolaha oo dhan waxa uu ilaysan karaa jin ha ahaado insi ha ahaado xayawaan ha ahaado noolaha oo dhan waxa uu ilaysan karaa qofka muumin ha noqdo kaafir ha noqdo dumar ha noqdo nin ha noqdo ilmo yar ha noqdo waxa uu ilaysan karaa marka dhinaca qofkiiba wax ilaystay ama shakhsigiiba wax ilaystay ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo sunnadana way ku sugan tahay marka laga yimaado dhinaca kale sixirka iyo jinka cilaaqada ka dhaxaysa waxa weeye cilaaqa matiina oo sixirku ma shaqeyn karaba jinka la'aantiis maxaa yeelay jinka ayaa ku shaqeeya sixirka marka qaybtaas kalena waa qaybtaas oo istifsaal iyo faahfaahinteeda insha Allah taala waa gali doonaa laakiin sixirka dhidabada uu ku taagan yahay waa laba qaybood ah labada qaybood uu ku taagan yahay waa qayb loogu magac daray maadada sixirka iyo qayb loogu magac daray atharka ama raadaynta ama ficilka ama saameynta qofka uu sixirku ku yeelanay marka labada qaybood oo labada qaybood laba maaragtay mowduuc oo kala duwan ay yihiin baa maaragtay uu ku shaqeeyaa sixir waa tahay daaweynta aad samaysaan maxay isugu jirtaa teeda kalena qofka bukaanka markuu idin yimaado maxaa uga bilowdaan hawsha halkee ka bilaabataa wallahi dadka wax ilaajka sameeyaa way ku kala duwan yihiin aaraada iyo aragtida qofba meel buu wax ka arkaa qofba maaragtay si wax u daweeyaa jaamacad gooniyo looga soo baxo oo tartiibisay hawshana ma jirto culimo ijtihaaday oo kutub qortay kutubtoodii baa la akhristaa qofku xirfadiisa ku sii darsadaa marka xirfadiisa markuu sii darsado ilaahay wuxuu waafajiyo ilaahay maana waafajinta leh marka sida fiican waxa weeye qofku hadduu mucaalij yahay oo uu ruqya sharciya wax ku daweynayo waxa fiican koow marka koowaad inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarto hawsha uu sameynayo ilaahay u tala saarto subxaanahu wa tacaala in uu og yahay inuu cadow la dagaalamayo rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam hatamaniina cadow inaad la dagaalantaan haddaad tamanidaan oo aad damacdaanba sugnaada haddaad tamanidaan sugnaada inuu cadow la dagaalamayo in ay arintani ikhlaas ka tahay oo ilaahay dartii ay ka tahay ilaajka quraanka iyo kitaabka iyo sunnada waxaa sii dheer muxuu ahaa dhirta ama dawo dhaqameedka ama herbiska waxa la yiraahdo oo cashaabta ah iyaduna qayb ay ka qaadataa kulli maaragtay waqti badan oo culimo badan ku sameeyeen qaybo kamida waxaa kamida oo qofka yani lagu daweeyaa toobinka ama xijaamada ama kabinka iyadana qofka dawi u tahay wayna u fiican tahay aad bay ugu fiican tahay iyo talooyin qofka in la siiyo oo loola taliyo oo qaabkii wax uu u sameyn lahaa oo isagu qofkii isu daweyn lahaa qudheeda in lagala taliyo oo la talin loo sameeyo loo baahan yahay marka qaybahaas ka mid ah ilaajka anoo maartaan ku sii dheeraanay insha Allah taala waa gartay waxaa jirta waxyaabo oo aan dadka maqalnay oo saafilayna adiga ruuxadaada aad maqashay in cilaajka uu kamid yahay marmarka qaarkood in qofkii la xanuunjiyo ama karbaash ugu dhufto iyo waxyaabo noocaas ama waxyaabo kale loo adeegsado sida korontado kale iyo maxaa arintaas ka jira mana sameeysan idinka taas horta culimada qaar waa ijtihaad weeye qofka
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب تكمل إن ويمي ورعيلي لهذا الطائف وملاح وقدري ويري يا رسول الله صلاة أسكاكي لحق ليسا عثمان وأصحابي جميل يسي مركا رسول صلى الله عليه وسلم شفك أيو كدب باحي وحويل أخرج يا شيطان في صدر عثمان شيطان وكبح مارتي لافتا عثمان مركا أصحابي وحيد ما انتبه يقدم بيسي مارتي مركا علماء اجتهاد كود وحوي قاركود قفك إيمان كيسا إيو وصائش وأديك سنة إيو وحبضن بي ماركتي كوحرانتها الرمحاس مركا حدو قفكو يساقو راليك يهي إن ماركتي الدنيا هذا ارتويس بدشي وراليك يهي علاجك لو قبانيو إن لو قدرتو بينك مساج كورنتو يرو ماركتي مساج دورك لغا سارسارو أو ماشي شاهدين تدقناين ماركتي ويوفي عنتها قفكا إن يعني ماركتي هدي يعني ماركتي لتانين لسيو إن لو دوغو من الله سمايو إن ماركتي سنة هدك طول شيء إن لطابو وحيالها صورنا هو وحس وضا له وقفك أنفع له محاي رسول صلى الله عليه وسلم شيطان كوحي ديقو راعا ما دام شيطان كديق راعا ماشي قفك حنونيسا دبتو كهيساتو ويان ماشا وشيطان كديقيني marka isaga ay faa'iido qofku ugu jirtaa maaragtay inuu meeshii uu ama isagu qafto ama loo qafto ama qof eelkiisa ama qofka mucaalijka ah oo dhakhtarka ah hadii yani maaragtay lagu waafaqsan yahay arrinkaas maxaa yeelay waa arrin khilaafi oo laga yaabo dad qaar inay yiraahdaan hadii qofku uu arko mucaalijka ay wax daweyn inuu dhakhtar yahay arrinkana ay daruuro tahay yani maaragtay wixii uu qaban karo inuu qofkii u qafto ee qofka maarta caawinaysa hay la darto qofka dhaqaatiirta caadiga marka qofka cancer uu ku dhaco kiima lagu shubaa kiimada timaha ka daadanaya qofka jirkiisa baa dhamaanaya inuu khatar u galo dhinta laga yaaba marka waxyaalaha waxa jira anfac qofka oo leh marmarna side effect leh marka quraanka qudhiisa qofka marka lagu akhriyo uu ooyaya oo dhibaatoonay muxuu ooyaya sheedaankii ku jiray baa dhibaatoonaya وقلت لكن وش محيسو كردنيسا دي قفكي لا غراعو سو جيركيسي ما waxa calaamadaha ku yeelanayo oo xanuunsanayo qofkii markaas dhinacaas laga fiiriyo horta yani ul qofna ma adeegsan karo oo inta badan cid adeegsataa ma jirto ul waxa ugu badan aan ku sheegay waxa weeye in qofka dhirbaaxo la dhirbaaxo dhirbaaxadaas iyo yani dagaalkaas qofka iyo tahdiidkaasi qofku waan ku sheegay wuxuu ku yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhiigu raaca shaydaanku maadaama shaydaanku dhiiga raaco meesha la toobay dhiiga laga keenay ama la dhirbaaxay ama la duugay waa meesha shaydaanku deganaa ama ishu deganay hadii marka lagu dhibaatay meesha ama dhiig laga soo qaado ama la duugo xanuunkii meesha uu ka baaya qofkiina uu nafisaya marka qofka ayay dawo iyo ilaaj u tahay meesha ya xanuunaysa in la dhibo hadii uu isagu يعني ذلك يهي واتاي waxaa jirta marka la fiiriyo dadkeena Soomaalida waxaan nahay dad dhibaatooyin fara badan dalkoodii burburay adduunyada dhan qaxooti ku wada noqday marka dadkaas oo kale waxaa jira xanuuno maskaxda ah oo qofka ku dhaca sida depression ko kale iyo xanuuno kale oo tiro badan oo maxaa la yiraahdaa maskaxda ku dhaca mental health la isku wada yiraahdo xanuunadaas marka qofkii hadii ku dhacaan oo kale oo uu kula yimaado calaamadaha hadda aad soo tirisay oo qofka uu dareemayana sidee ku kala saari kartaa qofkan inuu jinni ku jiro iyo inuu maaragtay xanuunadaas kale uu qabo sidee lagu kala saaraa ilaa calaamadihii waa isaga mid bismillah magacyadan hadda aynu sheegayno depressionka iyo maaragtay waxa sorta magacyadaas laba arrimoodba inaan yani anigu fikirkayga ka dhigto waa jeclahay oo ah kow dadka dhibaataysan qofku haduu dhibaato soo maray oo qax soo maray oo dhibaatoodo inta badan wixii jirkiisa ku jiray baa awood waxay u helaan inay maskaxda qabsadaan oo ay dhibaateeyaan maxaa yeelay shayaadiinta ama jinka ama sixirku wuxuu ku shaqeeyaa qofka oo awoodiisa uu ku qabsadaa oo dacfiga uu ka helaa waxay tahay qofku inuu murugoodo inuu xanaaqo iyo inuu cabsi dareemo iyo inuu diinta Ilaahay ka fogaado
afartaa qodob qofku markaa haddii laga yaaba inuu markii horeba wax qabay laakiin awoodda ilaahay siiyey dhib kale aanay haysanin marka uu murugoodo dad badan waxaa jira sixran oo sixirku aanu awood u lahayn inuu fadhiisiyo ama dhibaato maskaxeed gaarsiiyo maxaa yeelay qof naftiisu ay xasiloon tahay weeye inuu jirkiisa wax ka dareemo maahane maskaxiyan looma dhibaateyn karo waxa way cibaadadiibu ku fiican yahay dhib baa ku imanaysa murugu dareemaya murugadaasi waxay sahlaysaa qofkii in ay awalba way u gabanayeen shayaadiintuye inay hantaan oo dhib ay weyn ay gaarsiiyaan marka inta badan waxay ku timaadaa arrimahaas ay ku timaadaa qodobka labaad ee ah muxuu ahaa wax walba oo ilaahay uu sameeyey sabab buu u sameeyey xanuunka nafsaaniga maxaa keenay nafsadu xanuun bay keentaa sabab baa keentay sababtii hadduu dhakhtarku garan waayey cilaajka iyo dibigaa garanay ta kale qodobka ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu fahmo shareecada islaamku qofka waxay siisay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa dawadiisana waa soo dejiyey ma anzala allahu daa'an ilaa wa anzala dawaa rasuulku wuxuu raaciyey jahilahu man jahilahu wa calimahu man calimahu qofkii gartaana ha garto qofkii aan garanna yuu garan inagu haddaynu muslimiin nahay waxaynu u daba fadhiisanay wax walba oo adduunyadan yaala gaalaynu u daba fadhiisanay rasuulkuna wuxuu leeyahay ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa dawadiisana uu soo dejiyey laakiin qofka jaahil ka noqdaa waa qofka aan research samaynin marka adoo muslina oo kalaamkii la haysta oo dhirtii iyo cashaabtii iyo dawooyinkii haysta kutub culuma qortayna haysta inaad ka faa'iideysan weydo oo raadin weydo xanuunada jira inaad adigu u dhaado dawo u heshid oo cid kale aad u daba fadhiisatid waa maaragtay dacfi qofka yani muslimka ku jira wey inuu qofka muslimka aamino qofka muslimka waxaa laga yaabaa hadda qof muslima haddaad u tagto oo tiraahdo geedkani sixirku u fiican yahay caloosha loo cuno 100 su-aalood inuu kaa weydiiyo maxaa sidana maxaa yeelay yani maaragtay shaki buu qabaa laakiin dhakhtarku hadduu yidhaahdo gaaskaa loo cunaatan inuu yidhaahdo keen markiiba uu maaragtay meel dhigto qacda ka saaro marka waxa weeyaan waxa keenay taasna waxa weeyaan research uun qofku dadka muslimiinta ayna samaynin arrimahaas oo ay ka gaabiyeen marka waxaan aaminsanahay culumtan jira ama ilha noqoto waxyaalahan hadeerto cancer la leeyahay dhiikarka macaanka sixirkuna uu keeni karaa ishuna waa gartay dad badan ilaahay ka daweeyna uu jiraa kadib markii ruqya sharciya maaragtay loo sameeyay waa gartay marka waxaa leedahay dhaqaatiirta caadiga ah oo saan hadda la soconay dadoo dhanba ay ugu tagaan muslim iyo gaalaba ay ugu tagaan daaweynta hadday ahaan lahayd daaweynta cudurrada jirka ku dhaca ama cudurrada maskaxda ku dhacdaba loogu tago ma waxaa leedahay dadkaas waxaa wanaagsan inay cilaajka caadiga isku dabiibaan oona dhaqaatiirtiiba aynan wax u doonan miyaa leedahay mise maxaa dhakhtarku haddii uu qofku markuu dhakhtarka u tago xanuun lagu arko xanuun la garanayo la daweyn karo waxaa fiican dhakhtarka inuu tago rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam tadaawu cibaadallahi addoomadii alla u isdaweeye qofku inuu isdaweeyo waa sabab ka mida min asbaab laakiin inuu isku daweeyo dhakhtarka qur-aankana isku daweeyo waxaa laga yaabaa qofku inuu u baahan yahay rasuulku wuxuu yidhi faatixadu waa shifa waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay 7 faatixo oo subaxii markuu soo tooso koobka biyaha uu cabayo uu ku akhriyo xanuunkaas oo dhan inay ka biinayso ibn qayyim wuxuu yidhi xanuun igu dhacay ma jiro ilaa faatixaan isaga daweey marka rasuul qur-aankii baa dawaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugnaaday inuu dawada caadiga isticmaalay oo gurigiisa waxa laga isticmaali jiray geed kale talbiinaha walwalka u fiican waa powder yar oo maaragtay sida qabandiga oo kala oo talbiina la yiraahdo ajwada rasuulku sallallahu alayhi wasallam timirta ajwada uu ka hadlay xabad soodada uu ka hadlay cuudul qistiga uu ka hadlay waa yani maaragtay dawo xisiyo la taaban karo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaa qaniinay xadiis saxiixa isagoo salaad ku jira caqrab ama maaragtay dibqalooc markaasuu rasuulku wuxuu ilaahay naclada maaragtay dibqalooce qof salaad ku jirana ma daynayso ii keena biyo iyo cusbo markaasuu biyihii iyo cusbo loo keenay meeshiina uu ku dhaqay wuxuuna ku akhriyay rasuulku mucawadateynka iyo qul yaa kaafiruun muxuu jimciyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam dibigii dhakhtarka iyo dibigii kalaamka ilaahay labadiiba waa jamci
marka qofku waxa la rabaa isagoo xitaa dhakhtarkii u tagaya inuu maaragtay dad badan oo waxa jira stresskaas dhakhaatiirtu ku sheegeen markii aan wareysanay ee quraanka aan calaamaadka jinka aan ka helay quraanka lagu akhriyay ilaahi stresskii uu ka daweeyay subhanahu wa ta'ala marka dhakhtarka loo baahan yahay marka qaarkood waan kula taliyaa islaam badan soo waxay maaragtay intaasoo maalmood ma seexan ilmihii waa dagaalamaya dhibaato sameynaya marka hore maaragtay booliska uu yahay dhakhtarka halgeey emergency hala maaragtay qofkii hala dejiyo kadib marka way isleeyihiin ilaajka iyo dhakhtarku laakiin waxa la rabaa cidii kulmin lahayd ee maaragtay maskaxda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana aaminsanahay haday culimada iyo dadka eludiinka iyo dadka maaragtay baxtiga iyo baaritaanka sameeya arrinka u qumi lahaayeen inay wax badan uga faa'iideyn lahayn ummadda ilaajkan ilaa iyo muddo 8 sano sidaad ii sheegtay aad ku soo jirtay dad badan oo kala duwan dabcan way ku yimaadeen oo qof walba qiso gaar ah ku leeyimid dadkaas da'ada isugu jireen ma noo sheegi kartaa dad hadda saad sheegaysa maamooyin ama hooyooyin kula soo doontay ilmahooda oo xanuunsan ku keenay marka da'ada isugu jiraan ilmaha lagu keenayo iyo dadka waaweyn intoodaba teeda labaad isku simiya u daaweysaa qofka yar markii lagu keeno ama caruurta markii lagu keeno iyo qofka weyn sida u kala daaweysaa bismillah horta quraanku uu wado qofka ama ha yaraado ama ha weynaado ama maaragtay meel ha ahaado ama ilaajkuna waa isku si oo de quraanka lagu akhrinayo waa quraankii kalaamkii Ilaahay ducada la akhrinayo waa ducadii laakiin ilmuhu haduu yar yahay wixii asiiba way ka dhiban yihiin qofka weyn maxay la qofka weyn isaga ayaa in badan iscaawinaya hadaad adkaarta akhriso tirahada uu akhrisan karaa waysa qabbu sameyn karaa maaragtay salaadihii iyo cibaadadii Allah tuugii buu sameyn karaa ilmaha yar marka wax badan kugu macaawin karo oo de maaragtay naftiisa xanuuno badan baa jira hadeerto oo maaragtay ilmaha yar ku soo badanaya Ilaahay maaragtay ummadda ka ilaaliyo inta dhibta haysatay autismka iyo wixii la midana Ilaahay ka dulqaado waxyaalahaas oo kale qofka waxay u baahan tahay process dheer inuu helo quraan joogto ah iyo maaragtay inuu qofka qudhiisa loo training gareeyo isagu hooyada qudheedu inay iyadu maaragtay quraan saarato ilmaheeda maaragtay dad baa laga yaabaa in magaalooyin kale ka soo wacaan oo maaragtay dhibaataysan waxa laga yaabaa inay u baahan tahay qofkaasi ilmaheeda inay iyo 70 aayad kursi habeen walba ku akhrido marka talooyinka markaad siiso tiraahid adoo ku akhri dad badan maaragtay maalin weydiiro baa gabadh iga soo wacayso waxay tiri yaani maaragtay arrinkii quraankii aan ku akhriyay ilmihii waa ku degay waan ugu fiicnaaday marka waxa laga yaabaa inaadan mucaalaj iyo qof yaani cilmiga yaqaan kaliya aadan u baahnayn adiga in lagu mudafeed gareeyo oo lagu sheego ina adigu maaragtay qodhaadu aad tahay qof wax sameyn kara oo niyada lagu sheego niyada lagu dhiso waa qayb kamid ah ilaajka marka way yar adag tahay ilmaha yar way ka adag tahay qofka weyn marka soo koobo laakiin ilaajku guud ahaan waa iskaga mid dadka idin yimaada ama qofka bukaanka markuu idin yimaado oo daaweyntan uu soo doonto saan maqlay lacag lagu dalacaa soo sada ma aha lacag lagu dalacaa ama lacag laga qaado qofkii waa sax lacagtaas marka ma hal mar u bixinaya ma hal maxal yiraahdaa ilaajka intuu socdo dhan u bixinaya midada kale si ilaajka quraan akhrinta dada waxay yiraahdaan lacag in qofka laga qaado waajib ma aha oo hadii quraan lagu akhrinayo quraanka si caadi looga qaado marka tan arinta lacagta ma naga jahal bixin kartaa xogaa arinta quraanku lacagta la qaadanayo qofka waxa fiican horta hadii laga maarmi karo inaan lacag laga qaadin hadii yaani facility loo sameynayo oo qofkii hawl loo qabanayo iyo waqti iyo time de waxa laga yaabaa qofku qudhiisu inuu garto wixii maaragtay uu qofkaas maaragtay usil oran karo waa u qalmaa sharciyan markaan u soo noqono waa min sunna in qofka ilaajka loo sameynayo lacag laga qaato rasuulkuna uu ku qaatay sallallahu alayhi wasallam asxaabtii ku qaadatayna uu ku farxay marka min sunnati marka sunnada la eego waliba culimadu waxay ka doodaan miyuu la gorgortamayaa naan la gorgortamaynin ma jucla oo wax jucla la yiraahdo ma waxay ku heshiinayaan qofkan intuu ka caafimaadayo
inuu maaragtay xoolaha intaa la eg bixiyo mise waa wax uu qadimayo ilaahay waa caafimaadka haye inta wax caafimaado ama yu caafimaadine wax qofkii u qalmi kara oo maaragtay marka xadiiska Abu Sa'id al-Khudri maaragtay nimankii yani sooriyeen waayay xadiiska dheer ee loo daliishadaba waxyaalo fara badan oo kamida quraanka in lagu lacag qaato way ku shardiyeen oo hadayna xoolaheena siinin rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam Abu Sa'id xoolihii aad soo qaadateen wax iga siiya sheekh culimada kamida oo Waliid Idriis al-Munaysi yiraahdo wuxuu yiri rasuulku xoolo uu naftiisa u jeclaaday shaqo la qabto oo xoolaha iyo maalka laga helo uu rasuulku naftiisa u jeclaaday waxaa jira oo kaliya ruqya sharci xadiis kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam isaga oo safar ah oo maaragtay asxaabta kamida la socda bay ku soo bixeen haweeney ilmo yar ka xanuunsan lama wax la yiraahdo oo hayo kadibna uu soo rafcay soo wactida rasuulullah ilmahan waa xanuunsan yahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam sidaas oo kale uu duceeyay wuxuu yiri ukhruj aduwallah ikhsa aduwallah cadawgi Allah ka bax hoogooba anigu rasuulkii ilaahi baan ahay handadaad buu ku sameeyay shayaadiintii iyo jinkii dhibaysay rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ka tagay uu soo noqday maalintii labaad wuxuu yiri ilmihii ka warama ilmihii waa caafimaaday rasuulku waxay u keentay 2 neef oo ariya iyo maaragtay subag iyo waxyaalo kale caano marka rasuulku wuxuu yiri ninkii ku yiri 2 neef ee ariga mid u daa inta kalena inoo soo qaad waana xadiis saxiix ah oo maaragtay si xadiis la hubo marka in lacag lagu qaato ruqya sharciya way ka ooleysan tahay in quraanka baristiisa lagu lacag qaato oo quraanka baristiisa axaadiis sariixa oo ku soo arooray ma jiro waliba nahyi baa ku soo arooray laakiin culimadu waxay u daliishadaan quraanka baristiisa maadaama uu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam inna khayra ma akhadtum ajran kitab Allah xadiiska Abu Sa'id al-Khudri markuu la hadlay wuxuu ku yiri wax ugu khayr badan ajr lagu qaato oo lacag lagu qaato waxa ugu khayr badan kitaabka Ilaahay xadiiskaas loo daliishadaa quraanka qudhiisa in lacag lagu qaato laakiin asalku waa ruqya sharciye iyo asalka xadiisaas oo dhan marka noocyada jinniga iyo sixirka hadda noo sheegtay bal noocyada u kala baxaan inta qaybood ay u kala baxaan sixirka isha jinka noocyada u kala baxaan hadda noo sheegtay sixirka waanigi ka soo hadlay markii gooraysa soo tilmaamay maadada sixirka iyo sixirka yani ficilkiisa marka maadada sixirku waa wax fara badan oo aan xad lahayn oo waxa weey qofka wax lagu dhibaateynayo oo aan noole ahayn ama timiisa la qaado ama hadiyad loo keeno ama maadadaasi waa maadada yani ficilku inuu dhaco sababaysa waana maadada cilmiga uu saaxirku bartay ah oo uu qofka lagu dhibaateeyo waana maadada hadii la tadliifiyo oo la baabi'iyo sixirkii aanu jireynin hadii ay jirtana sixirkii uu sii jirayo sixirka marka ficilkiisu waa jinka wakiilka ka ah sixirka oo maadadaas kaashanayo marka maadada uu kaashanayo way nooc badan tahay laakiin sixirku wuxuu u qaybsamaa sida culimadu sheegeen qaarkood 10 nooc ilaa 12 nooc bay yiraahdaan ugu badnaan 12 kaas nooc waxa ugu muctarafsan oo la yaqaana yani sixirka tafriiq oo hadda aan sheegayno reeraha isku dira oo la dhihi karaba yani aniga qudheed inta soo martay sixirka noocaas ugu fara badan oo tafriiq la yiraahdo calaamad fara badan buu leeyahay calaamaadkaas maaragtay qofka yani cilmiyan inuu ogaado ay tahay waxa ku xigo oo isaguna ka yar intaas laakiin badan sixirka madiidada la yiraahdo af Soomaaliga ama afariga sixirka maxabada ama tawlada ama ishqiga isaguna waa sixir jira oo maaragtay horena u jiray haddana jira oo aad moodo inuu si yar batayba waxa kaloo jira noocyada sixirka kamida sixir la yiraahdo khumuul ama damanaan ama qofka kartida iyo awoodda in laga qaado calaamadu isaguna leeyahay sixir shaki iyo waswaas keena oo maaragtay qofka shaki ku dhaliya
oo shakigu noocyo badan yahay. qofku cuntadu ka shaki karaa, cibaadadu ka shaki karaa oo salaada iyo maaragtay wuxuu ka shaki karaa iimaankiisa oo kale ka shaki karaa. waana maaragtay waana noocyada ugu adag runtii. waxaa kaloo kamid ah sixirka rafdiga la yiraahdo oo qofka dareenka laga qaado, ninka dareenka laga qaado ama haweeneyda dareenka laga qaado. waa nooc jira. waxaa kaloo jira nooca maskaxda ku dhaca, nooca junuunka la yiraahdo sixirul junuun oo qofka maskaxda inta badan marka la yiraahdo qofkaas uu sixirayeen Soomaalidu waxay taqaanaa waa leeyahay, laakiin noocyada kale waa jira. waxaa kaloo jira sixirka maaragtay laba sixir oo dumarka gaar u ah oo maaragtay sixir la yiraahdo isqaad aljiniin oo ilmaha ka soo rida oo qofka hadii xasad loo sameeyo ilmaha qofka maaragtay ka soo ridaya. hadii mararka qaarkoodna yani nooc kale oo isaga hoos taga oo la sixir naziif oo dhabar furan ah oo dumarku kaasina gaar u yahay. waxaa jiro kale sixir kale oo maaragtay cabsi keena oo inta badan dadku inta badan isuma sameeyaan, gaalada isumeysa maaragtay cabsi iyo walwal iyo keena oo qofka inuu naftiisa halaago ama dhibaato gaarsiiyo oo wax suureysto. marka noocyo badan way 12 nooc ku dhawaad way waana noocyada ficilka ta'thirka qofka lagu dhibaateeyay. way jinkana ma inta soo nooc 12 ilaa 11 nooc kala duwan oo kala baxaa mise waa hal nooc kaliya isagana? waxa ku shaqeynaya waa jinka. waxa dhanba sixirka waxa wada waxa ku shaqeynaya wax uu ka shaqeynaya sixirka maadada la soo diray hadii ay ahayd qofkan in kartidii awood laga qaado meelo gaar oo jirka uu ka degaa jira oo kartidii awood uu ka qaadayo. marka jinka shaqeynayo shaqadan qabanaya, laakiin maadadani waa powerkii uu adeegsanayay. jinka marka hadaad su'aashaasaan u fahmo hadaad leedahay jinku inuu soo nooc uu isagu u qaybsamaa. isagu wuxuu u qaybsamaa 3 nooc rasuulkaana sheegay sallallahu alayhi wasallam. okay way marka hadaan uga gudubno ishana ma isku calaamadihii qofka loo qabanaya marka la yiraahdo qofkan ila ku dhacday isla calaamadihii mise way kala duwan yihiin asagana noocyadiisa? calaamadaha ishu iyo jinka oo dhan ama sixir ahaada ama noocyada jinka noqday way isu soo dhow yihiin. meelaha ay degaan waxbay ka wada degaan, laakiin waxa lagu kala gartaa qofka aayaadka ama ducooyinka caynta marka la akhriyo marna waa weydiisay. caynta marka la akhriyo haduu caynta dhibsado oo nuhu gariiro oo uu wareero oo dhidido ama uu ooyo waxa la garan karaa qofkaas inay cayn hayso. hadii aayaadka sixirka la akhriyo oo aayadihii quraanka Nabi Muuse iyo Fircoon qisaskii dhexmarayna hadii uu sixir la soo hadal qaado uu ooyana waxa la garan karaa qofkaas inuu sixir hayo. marka labada nooc waa lagu kala garan karaa, laakiin ishu way ka duwan tahay maaragtay sixirka. waa gartay. marka hadaan mid kale uga gudubno daaweynta la daaweeyo qofka waxaan la socdaa inaad quraan kaliya ana lagu daaweyn waxyaabo kale dhir iyo waxyaabo kale aad adeegsataan. marka daawooyinkaas dhirta iyo mudaawaadkaas kala nooca isugu jira saliidaha haday ahaan lahaayeen waxyaabo kale haday ahaan lahaayeen waxa afka ka qaadanaya haday ahaan lahaayeen ma wax cilmi ahaan aad u barateen oo aan maaragtay dhibaato qofka uga iimaanayna mise oo wax waay qiyaas ku socdo sidee arintaas naga dhigi kartaa? wallahi waxyaalaha horta dhirta ama dawadan dhirta ah ee jinka ama sixirka la siiyo wax anagu aan sameeynin maaha, waa wax dad hore sameeyeen oo sixirka lagu soo dagaalami jiray oo isha lagu soo dagaalami jiray. aad bayna u adeegsadaan Chinese-ka iyo dadka maaragtay dhirta aad u yaqaan Iiraaniyiinta. waa wax maaragtay Sacuudiga iyo Soomaaliya iyo meelaha jinka lagu daweeyo laga isticmaalo dhirtaas qaabkaas looga isticmaalo. marka waxa soo dhan wixii ugu ma'muunsanaa ee ugu nabadgalsanaa buu qofka mucaalijku ka dooranaya oo aan side effect lahayn oo qofka side effect lahayn anfacaysana u fiican isagana. markuu qofku deewa inuu cilmi u leeyahay iyadana qofkan uu siinayo iyo maaragtay dhibaatada haysa iyo arimahaas. laakiin dhirta inta badan la siiyo acshaabta la siiyo isha iyo sixirka intooda badan waa qorfaha iyo heelka oo kale. qorfaha iyo heelku haduu qofku maanta oo dhan isticmaalo yani inta badan 90% side effect ma laha. waa dhir ma'muun ah oo maaragtay la hubo inay wax dhibaato qofka u keenin insha Allah taala.
dhirta qaarkeed waxa iyadoo ay tahay daawaadkii caadiga ah ee la isticmaalay sida malabka oo kale hadda waa la isticmaalaa laakiin saas ay tahay qofka sokorta qaba kaba soo qaado qof sokor qabo waxa la yiraahdaa malabka iska ilaali ha cunin waxyaabaha macaan oo kale marka hadii sidaas oo kale mudaawaadkii loo qoray qofka caadiga aan ku xanuunsanaynin laakiin qofkii kale uu dhibaato ka soo gaari karto kale waxyaabo noocaas ma u qortiin dadkii ama ma wareysatiin ba xataa qofkii inuu maaragtay ka hor imaanaysa daawaadka aad siinaysid iyo daawooyinka kale uu qaadanayo horta sideedaba dhirtan dawo lama yiraahdo waxaa la yiraahdaa herbiska waa dawo dhireed oo yani dawo maaha yani maaragtay medicine ah medicine-ku xitaa dhakhaatiirta way sheegeen side effect way leeyihiin laakiin dawooyinka dawo inta badan waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in qofku hadda Mareykan dhexdiisa waxa laga yani meelaha organic oo kale dhib baa lagu iibiyaa shaahiyo maaragtay calool socodsiyo kuwa maaragtay waxyaalahaas oo kale waa wax maamuun oo la yaqaano oo maaragtay la garanayo qofka laakiin mucaalajka ah ee waxan sameynaya ama ficilkan sameynaya waa looga baahan yahay waxyaalaha laga yaabo inay qofka dhib u keeni karaan ama xanuunkiisa dib u keeni karaan inuu yaqaano oo qofkana uu wareysto waxa uu siinayana uu u sheego waxa ay dawo ugu fiican tahay iyo hadduu dhibaatada qabo inaanay u fiicnayn waxaa laga rabaa qofka maaragtay cilmigan yaqaana baa looga baahan yahay inuu maaragtay arrintaas ku dadaalo oo sameeyo insha Allah ta'ala dhirta aad ku daawaysiin iyaga hadda aad macnaha ugu badan dhirta ugu badan oo lagu daaweeyo maxaa kamid ah markii aad tusaale ahaan noogu soo qaadatay dhirta يعني ما ركتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيدي تمر عجول اللي يلاهدو هل عب يعني تضخف تضوح بهدوء عنه ما أنت اسمع أصيبه السحر إيو ما ركتي يصن سحر كودو حبة سودو كلا ودو جيد عود القصة اللي يلاهدو أو إنجليش كان كاستس اللي يلاهدو رسولك حديث صحيح البخاري ومسلم كوشاقي ودو إنشاء سحر كتشينكا وأنا مأمون أو ما ركتي ووح يعني عانو اللي يقانو واحد قفك آنو كينين مركا وحيالا اسكا يعني فضود او ايسي او قفكو وماركتي يعني هديو بارتان قسميو وقران كارو ميل والبا ماركتي اقوانتي دلوليهي مقعاسنا والا يقانا اقوانتان والا يقانا قيد والبا او قيدها كميدا هدو قفكو مقعيسا قليو ويكيبيديا ama google-ka oo helaya macluumaadka iyo wixii uu anfacay iyo wixii dhibayo intaba isagaaba maartay qofku professional ku noqon kara waa gartay ma jirtaa marka dad inta hadda aad daaweysay daaweyntan quraankii dhirtii iyo wixii noqotaba lagu daaweeyay ma jirtaa dad gadaal kugu soo laabtay oo cabasho kaaga timid ama haday noqon lahayd ku xanuunsaday dhirtii ama haday noqon lahayd maaragtay waxyaabo kale oo dheeraada markii uu ku iimaanay intii uu qabay ama ka basii badan isku sii arkay waxyaabo noocaas ma jiraan dad cabasho kaaga timid adiga ahaan waa specific martid inaad ka jawaabtid waa gartay waayahay waxa marka aan uga soo gudbayaa dadka hadii ilaahay ku rooyahay waa ogsoonahay horta quraanka daawo inay noogu jirto ilaaha noo sheegay kitaabkii ku qoran tahay quraanka inay daawo noogu jirto marka hadii qofkii uu asaga quraankii isku aqriyo oo uu quraanka intuu soo qaato cajaladaha uu ka dhageysto ama isku aqriyaba qofkii xanuunka qabay ma laga yaabaa inuusan u baahan dhir iyo waxyaabahan inuusan u baahan mise waxa leedahay isku aqrintu isku aqrinayo kaliya ma soconayso waxa wanaagsan inuu cilaajka soo doonto culimadu ma sha Allah kul ibn Bas iyo culimo badan Uthaymeen iyo ka hadleen arrimahaas waxa weeyaan wadada ugu saliimsan uguna fiican khayrkuna ku jiro waxay qofku marka hore inuu naftiisa ictimaado oo naftiisa uu maaragtay waxaan isku dayo waxa laga yaabaa inuu suuratul baqara oo adeegsado dad badan oo intaan waxba ka qaban kar weynay quraan ku akhrinay guryahooda intay tageen suuratul baqara dhageystay maalin weyd gabadhi soo wacaysay oo xanuunkiiba uu ka caafimaaday annaguna aan waxba ka qaban kar weynay yani maaragtay sixirkii dhibta haysatay markii iyadii isticmaaday oo ilaahay ku yani maaragtay iyadii ay noqotayna ilaahay subhanahu wa ta'ala nasrigu soo dajiyay marka nasrigu wuxuu ku yimaadaa oo qofka u fiican marka hore naftiisa ictimaado ehelkiisa ictimaado haday gabadh oday leedahay odaygeeda quraan ku akhriyo walaalaheed quraan ku akhriyaan hadii ay iman weydo dadku inta badan waxa yani annagana loogu yimaadaa waa daruuri hadii la waayo maxaa yeelay
haddii la helayo qof kale oo kaaga dhow haddii xitaa la helayo gabadh muslimad ah oo cilaajka samaysa anaga waajib waxaan uga inaan joojino laakiin waa inuu niyada raaciyaa xanuunka haya marka qofku inuu naftiisa itimaado oo quraankiisa isku akhriyo isagu isku dadaalo ilaahay baryadiisa uu badiyo salaatul leyl uu tukado inuu ilaahay weydiiyo dhibta haysata rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa la sixray ilaahay buu bariyay laba marag ba ilaahay soo diray waa loo sheegay sixirkii dhibtii haysatay marka waa loo baahan yahay qofku وانا لقو أخري رسولك يعني رقية شرعية يستقر وحو كو أخري عدي كو أخرسين وكو فرحي لكن مركو على قفك إنه كبل عوافي عن إنه ما عرفتي يعني يسقو إسلد دالو نفتي سقو كود دالو هذا ما سنتي معلم ما سنتي فرصة عيسى سين أدرى ما سنتين إلهي نوحان وبريا أمد دباتيسن إلهي إنه دباتتك قاضو دad kana waxaan talada ku siin lahaa weeye inay dadaalaan oo asbaabta la yimaadaan ay ku caafimaad lahaayeen baaritaan ay ku sameeyaan cilmigan wadaadada ku dhowdu inay maartay baaritaan ku sameeyaan cilmigan waa cilmi maartay balaaran inay baaritaan ku sameeyaan insha Allah taala dhamaan walaalaha waxaan leeyahay anagana noo soo duceeyo idinkana waad mahadsantihiin billahi tawfiq mahadsanid macallin maxamed igra lahu macallin Cabdullaahi maxamed idinkana daawadayaal aad u mahadsantihiin kasoo qayb galka barnaamijka nagala qayb qaadateen barnaamijka Danger Show oo maanta ku saabsanaa arimaha sixirka jinka iyo isha saameynta ay leeyihiin iyo waliba daaweynta loo yaqaan cilaajka ama daaweynta quraanka la isku daaweeyo iyadana nooc ay tahay arimaheeda waxaan intaas ku dareynaa hadii Ilaahay raali ka dhigo dadka xanuunsan xanuunkan ama xanuuno kala bahayaan Ilaahay waxaan uga baryaynaa caafimaad buuxa inuu siiyo asaga kaliya ka qaadi kara inuu caafimaadkooda Ilaahay u barakeeyo caafimaadkooda Ilaahay siiyo intii kalena Ilaahay ka xijaabo sharta iyo dhibaatada arimahan aan ka hadalnay waxaan Ilaahay idinkiis rajaynaynaa barnaamijyo kale oo lamid ah inaan ku soo qaadano intaan barnaamij kale ku kulmi doono aniga oo Basra iyo bahda barnaamijka idin wada leh sida iyo nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.